samirku waa inaad koontaroosho dareemadaada xakamaysa damacaaga xoogan markaad u dagaalamayso waxa aad rabto marka aad fiiriso adduunka aan hadda joogno tiknoolajiyada ayaa noo sahashay inaanu wax walba si degdeg ah ku helno anagoo samirkii iyo dulqaadkiiba ilaawnay dadka samirka leh ma ahan kuwa suga inuu qof kale dhibaato uu ku jira ka bixiyo balse waa kuwa iyaga dhibaatada iska saara isla markaana fahma in dhibaatadani waqtigan adag laga bixi doono macnaha dhabta ah ee samirku waa inaad fahanto in wadada kaliya ee aad kaga takhalusi karto dhibaatooyinkan iyo culeyskan aad marayso waa inaad wax qabad la imaato oo aad wax samayso samirku ma ahan inaad iska fadhido kadibna sugto su'aasha meesha taal ayaa waxay tahay sideen ku noqon karaa qof samir leh haddii aad raacdo qodobadan soo socda insha Allah waxaad noqon doontaa qof samir leh qodobka koowaad xoogga saar xalka markii ay ku wajahdo dhibaato isku day inaad ka fikirto sida aad ugu bixi lahayd dhibaatadaas ha noqon mid cabasho badan ee weligaa xagga wanaagsan eeg ogow dhibaato walba inay leedahay xal qodobka labaad jooji isbarbardhigga naftaada isbarbardhigga waa tuuga farxadaada mar walba aad naftaada la barbardhigto qof ka sareeya waxaad dareemaysaa murugo walac iyo niyad jab caafimaadkaagana uma roona xusuusnow in xaalad walba aad ku sugan tahay uu jiro qof kaasii liita nolosha hadduu isbarbardhiggaagu uu daciifinayo kalsoonidaada kugu sababayo masiir waxaad ogaataa in kaasi yahay isbarbardhigga xun halka kale isbarbardhigga fiican waa midka aan kugu sababin in aad dareento in qiimahaagu ka hooseeyo midka dadka kale qodobka saddexaad la saaxiib dadka ku dhiirigeliya haddii aad leedahay saaxiib ku dhiirigeliya marka aad marxalad xun ku sugan tahay waxaa ku fududaanaya inaad noqoto qof samir leh qodobka afraad ha dhegaysan dadka fikirka xun marka aad wajahayso dhibaatooyin iyo waqtiyo xun waxaad la kulmaysaa dad badan oo ku siinaya talooyin xun saaxiibka dhabta ahina waa midka wax kula qabta marka aad dhibaataysan tahay ugu dambayn noloshu way adag tahay waxayna leedahay waqtiyo aad u adag oo ku dareensiin kara dareema aad u xun haddii aanad samir lahaynna waqtigaas kama bixi kartid sidoo kale tababar naftaada in dhibaato kasta ay tahay imtixaan aad wajahayso madaxaagana kor u qaad oo raadi xalka dhibaatada kuna dhaqaaq xalkaasi